السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ديال ولي حكود جرنا يعني بوقشدي أن كجوجني دقمة ورشيق قبل كشبه الله دلحة. إمك هذا وحن جوجنا حيبتا دقمة ورشيق. إمك وحائل جوجو متكمدة dadka ku dhaqan degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ku soo dhow janaalka Sarey Show adigoo ku bilaabayo magacaaga adeero. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. وبعد هذه هو ديزو مقالة ورشيق ومقالة فعوين تاريخي قديمي صومالي أي تقانو يعني وحلقوا تلمام مع مقالة دي أو يعني مقصد يعني أو دينتا يعني برشاد دينتا مشايخي أو مشايخ بدن أي سوق بدشي إلا حتى أنا جوتو برشاد دينتا ميس القصي وضو يعني ما دام هرمر لقاري يعني مقالة waxay ka mid tahay magaalooyinkii gumeysiga lagu diray oo aad loo diray dad cadaan ah lagu dilay ayay ka mid tahay yani waa magaalo taariikhi ah haddana yani horumarka oo yani magaalooyinka kale ayay ka mid tahay horumar ay gaartay dawladda soo degtay dawladda barnaamijkeeda ayaa ka socdo maamulka ayaa ka socdo يعني waxay leedahay gudoomiye degmo ayay leedahay ku xigeenay leedahay maxkamad ay leedahay saldhig bariis ay leedahay maamulka dawladda ayaa ka socdo marka magaaladan waa magaalo aad yani u qurux badan oo loo soo dalxiisayaasha ay yimaadaan yani magiciisa aad ay u jecleysteen ay maalinta kale ay ka sii kordhayaan يعني مجلس يعني عيارتويدا حتى عن مجلس قال ماشي جوجتو حمر قاركي مدي قار مقالة الدكن هي وديلو هايان مركا دادكنا عادي يطاون يعني عادي وجعلستين مركا انت سيان كهايا انت يعني مقالة يعني مقالة فعوي تاي تاريخ تاي دادك يعني مجلس دادك هوري يعني الدولة دي هوري dad badan oo kamid ayaa ka soo aflaxay oo diinta xageeda u soo aflaxay ismaan maxamed yeelle iyo raggaas rag waaweyn ayaa ka soo aflaxay oo wax ka bartay ilaa haddana yani magiisga yani la xasuusto magaaladan waa magaalo oo taariikhdeeda aan la soo koobi karin yani waxaan aad yani magiisga ognahay in yani magiisga dadka ama dadka naga waaweynay oo sheegeen saddex nin oo muhaajiriin ah oo ka soo haajirtay xambar yani aanay yimaadeen iyadoo biyo la'aan tahay magaalada iyo baadiyahaba yani inay yani magiisiga sheekh kamida anoo yani magiisiga meel oo dabadan oo ka qaaday daboolkii biyana ay ka soo burqadeen biyihii soo burqaday ayaa magiisiga yani dadkii deegaanka dad kamida ay yimaadeen marka waxaa la arkay idoo meeshii loo sii socdo biyo laga soo dhaansanayo la sii marka waxay tiri maxaad yani islaan kala weydiinaysaa waxay tiri xageed u socotaa oo u wadataa wiilka u dhaamanaysa markaas waxay tiri Warshiq sheegan ku socdaa Warshiq sheegay ayaan ku socdaa sidaas ayuu magaca Warshiq sidaas ayuu Warshiq ayuu magacaas yaa loogu magac daray inuu Warshiq sheegay Warshiq saas ay ku tahay يعني مجلسك يعني مقعنا أتبع لو قيمة هو لو قاطع وأنا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله. مقالة ذا dadka ku nool magaalada ilaa hadda 700 ilaa meelahaas ay gaarayaan qiyaas ahaan يعني waxyaana waxay ka kooban yihiin afar waaxood ay leedahay degmada Warshiq oo afar nin yani kala xaqto oo yani magasiga deegaanka maamulkii ayaana u sameeyay oo degmada ayaa u sameeyay maamulkaas
degmada u sameeyey. odayaasha waa yimaadaan oo dalxiis ahaan waa u yimaadaan waxay yimaadaan laakiin waqtiyo kooban sida xilliyada siyaarooyinka oo mashaa'ikhda waaweyn oo meesha ku duwan la xusaayo ayay dalxiis u yimaadaan badda galaan ay ku dalxiisaan iyagoo baabuurtooda wataan xilliga yacni siyaarta ay dhamaataan markaas saas ay uga tagaan marka dhalinyarada hadda aan ugu soo badan oo aad u timaado oo jimco kasta iyo khamiis kasta timaado. waa masantahay caalamka joogo degmada Warshiq aad iyo aad u xiiseeya ama jecel sawirada ay arkaan muuqaaladeeda arkaan bal ka waran dadkaasi maxaa fariin ah u gudbinaysaa oo janaalka sareeysho u gudbinaysaa dadkaas oo jecel inay magaalada yani magiciisa dalxiiskeeda ama muuqaalkeeda jecel waxaan u gudbinaynaa in la soo dhaweynayo magaalada ay ammaan tahay ammaankeeda 100% uu yahay oo yani ciidan tababaran ay joogaan iyo maamul fiican ay joogaan ayaan u sheegaynaa anay ku soo dhawaadaan dhan walba amba dalxiis ha noqoto ama muuqaal ha ahaato anay fiirsan karaan ay imaan karaan aan u gudbinayaa tacliina.